munaasabaddan xil wareejinta way ka soo qayb galeen dhammaanba shaqaalaha wasaaradda xanaanada xoolaha aqoon-yahano mas-uuliyiin isugu jirta wasiiro safiiro iyo ganacsatada xoolaha ayaa wareyn hadal halkaasi ka jeediyey agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha doctor Jacam Maxamed Odowa oo ka warramay howlaha ballaaran ee wasaaradda xanaanada xoolaha oo hayso qaranka wuxuuna ka warramay waxyaabihii uu qabsoomay muddadii uu xilka hayay wasiirka hore ee wasaaradda xanaanada xoolaha Cumar Sheekh Maxamed Faarax waxyaalaha fara badan ee Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wasaaradda u suura galiyay inay qabato ayaa aad u badan waxa kamid ah masalan oo kale holding garownada socda oo hadeebdanka boosting siiyay oo in badan hadeebdanka ay ka shaqeeyay kormeero iyo kala duwana uu ku tagay hawl weyn oo ka qabtay oo waxyaalaha ugu muhiimsan waxa kamid ah maxaajir cusub oo la furay ilaa hal maxjar oo ay imaka ka dhoofeen ilaa 4 milyan xoolo ku dhow ay ka dhoofeen oo cusub oo la furay slaughter houses burco oo ka socdo oo asagana dhawaan la furi doono iyadoo oo la boost gareeyo oo hawsheedii la garanaysa si wanaagsan looga shaqeeyay inspection waxa weeye xoolaha marka la cunayo ee la qalaayo waxay u baahan yihiin in caafimaadkooda la eego intaanay dadka soo gaadhin ay cunaan inta kadib waxa isaguna munaasabaddan ka hadlay wasiirka hore wasaaradda xanaanada xoolaha Cumar Sheekh Maxamed Faarax wuxuuna ku dheeraaday ahmiyadda ay xoolaha nool u leeyihiin dhaqaalaheena wuxuuna sheegay maadaama xoolaha nool ay yihiin lafdhabarta dhaqaalaha bulshadeena in loo baahan yahay in meel looga soo wada jeesto sidii loo horumarin lahaa calafkooda iyo caafimaadkoodaba wuxuuna kula dardaarmay shaqaalahii wasaaradda xanaanada xoolaha in wasiirka cusub ee wasaaradda xanaanada xoolaha Mr. Cabdullaahi Maxamed Daahir Xuguse ay ula shaqeeyaan sidii ay isagu ula shaqeeyeen iyo si ka sii wanaagsan. Cabdullaahi wasaaradda mashaariic badan baa intii aan joognay inkastaan dhaqaaladii aan dooranay himilada meeshaan u gaarsiino anaan hayn laakiin wax badan baa loo qabsoomay marka aan dhismayaasha caafimaadka ka imaado neefka xoolihii dee qofku markuu buko dadku bini'aadamku inta uu jooga neefka xoolina uu joogaa Soomaaliland inta dadku joogo neefka xoolina uu joogaa laakiin qofku markuu xanuunsado uu qaaliyaa xoolo waa dhakhtar geey ama cid ugu yeera ama dabiib ugu yeera halayda weeye neefka xoole ma halayo waa in meesha uu joogo aad ugu tagta shaqaalaha halkaa soo fadhiya anigoo siin habeen siin anigoo lacag siin ayaan habeenkii diri jiray oo ay bixi jireen bariga galbeed intaba tegi jireen waa shaqaalo diyaar u ah aqoon u leh inay dalkooda u shaqeeyaan iyo dadkooda u shaqeeyaan meel la gaarsiiyaan dadka ramiyiga inakay lagu xisaabtamayaan caafimaadkooda noloshooda waxooda dhan inay lagu xisaabtamayaan Cabdullaahi wax ku soo dhaweynaya shaqaale furan shaqaale heegan ku ah inta kadib waxa isaguna munaasabadda ka hadlay wasiirka cusub ee wasaaradda xanaanada xoolaha Cabdullaahi Maxamed Daahir Xuguse wuxuuna ku dheeraaday sida ugu faraxsan yahay sida diiran ee loogu soo dhaweeyay wasaaradda xanaanada xoolaha wuxuuna ballan qaaday in uu ula shaqeyn doono shaqaalaha wasaaradda sidii uu ula soo shaqeeyay wasaaradii hore iyo si ka sii wanaagsanba ragga imanka madaxu ku cadaaday meesha nin waliba leeyahay u turno waa iyaga waan ku khasbanahay waa asxaabtayadii dhalinyarada kale ka dambaysayna waxaan u ballan qaadayaa dhakhtarka xanaanada xooluhu hadduu maanta yahay ka la higsadaa ka dadka ka xoolaha inuu noqon doono waxaan anigu idin leeyahay siyaasaddii ay wasaaraddu ku shaqaynaysay wax aynu ku kordhino mooyaane waxba ka dhimi mayno